kadib 73 milyan oo geni ay kula soo wareegtay xidiga garabka ka ciyaara ee Jadon Sancho. Kooxda lagu naanayso shayaadiinta cascas ayaa haatan diiradda saaraysa saxiixa ciyaaryahan qad dhexe oo ka ciyaara booska burburiyaha. Sida lagu faahfaahiyay Sportsmail, United ayaa qorsheynaysa in ay wada hadal la furto kooxda ka ciyaarta horyaalka Faransiiska ee Rennes si ay ugala xaajooto saxiixa da'yarka aad loo qiimeeyo ee Camavinga, kaas oo qandaraaskiisa uu ka harsan yahay 12 bilood oo qura. 18 jirkan waa ciyaaryahan aad loo qiimeeyo kooxo badan ayaana isha ku haya saxiixa xidigan. Kooxda reer Faransa ayayna u badan tahay in ay iska iibiso xagaagan si looga fogaado in da'yarkan uu beeca xorta kaga tago xil ciyaareedka soo aadan. Wariyaha caanka ah ee Fabrizio Romano ayaa sheegay in saxiixa xidigan uusan ku xirnayn mustaqbalka Paul Pogba, kaasoo calaamad su'aal dul taagan tahay waayihiisa Old Trafford. The Guardian ayaa intaa ku dartay in United ay diyaarinayso in ay ka gudbiso xidigan dalabkoodii ugu horeeyay oo gaaraya 30 milyan oo euro, laakiin kooxda ka dhisan Old Trafford ayaa isku diyaarin doonta in ay tartan adag la gasho kooxda PSG oo in muddo ah isha ku haysay saxiixa xidigan. Rennes ayaa dhageysan doonta kooxdii soo gudbisay dalab dhan 35 milyan oo euro oo u dhiganta 25.7 milyan oo lacagta geniga sterlinka ah. Tartamayaal badan ayaana soo bixi kara oo doonaya saxiixa xidigan oo u arka fursad qaali ah. Camavinga waxa uu ku soo biiray kooxda Rennes isagoo 16 jir ah. Xidigan ayaana ka soo muuqday xulka koowaad ee Faransiiska sanadkii hore ciyaar Croatia ay ka hortageen, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee u ciyaara xulka Faransiiska tan iyo 1914. waa xidig hadda soo koraya, aadna loogu ixtiraamo xawaaraha iyo awoodda uu u leeyahay inuu wax jalaafeeyo, isagoona noqday ciyaaryahanka ugu taakalka badan horyaalka Ligue 1 tan iyo bilowgii xil ciyaareedkii hore sida ku xusan xog ururiyaha Who Scored. Haddii uu ku soo biiro xidigan Man United, mashquul badan ayaa ka jiri doona qadka dhexe ee kooxda xagaaga cusub. Bruno Fernandes iyo Paul Pogba waa labada xidig ee ugu awoodda badan Man United. Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic, Donny van de Beek ayaa dhammaantooda ku dagaalamaya booska qadka dhexe ee Ole Gunnar Solskjaer. McTominay wuxuu ahaa xagaagii hore mid dhaleecin badan loo soo jeediyay maadaama uu ka soo bixi waayay shaqadii loo igmaday. Xidigan ayaa Ole u adeegsaday dhowr kulan oo boosas kala duwan. Scott ayaa inta badan gala sanduuqa, taasoo keentay in uu dhaliyo goolal badan, waxayna taas keentay mid dayaca booska loo xil saaray. Fred wuxuu dhaleecin joogto ah kala kulmi jiray saxaafadda maadaama uu ahaa ciyaaryahan inta badan uu Ole u adeegsan jiray booska burburiyaha, balse waa mid ka duwan markuu joogo xulka Brazil. Xidigan ayaa boos joogto ah ka haysto xulkiisa, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah. Kulankii furitaanka ee Copa America, Neymar ayaa saxaafadda u sheegay in aysan guul gaari lahayn haddii uusan Fred ahaan lahayn. Macallin Tite ayaa xidigan u adeegsada booska 8 waxaana la ciyaarsiyaa midkood Fabinho ama Casemiro, taasoo ka dhigta mid xuriyad hela kuna raaxaysta ciyaar. Balse United waa mid loo adeegsado booska kubad burburiyaha, taasoo keentay in uu sameeyo khaladaad badan. Matic waa xulashada dhabta ah ee ka ciyaari kara booska kubad burburiyaha ee uu haysto Macallin Solskjaer, laakiin wuxuu kaga jiraa xulashada Man United kaalinta shanaad isagoo ka dambeeya Pogba, McTominay iyo Fred. Xidigan ayaa ah mid aan qaab ciyaareedkiisa joogto ahayn, taasoo keentay in uu waayo kalsoonida macalinka. Si loo helo isku dheelitirnaan, waxaa loogu baahan yahay xagaagan Red Devils xidig qad dhexe oo ka ciyaari kara booska kubad burburiyaha. Xidiga West Ham iyo England, Declan Rice ayaa muddo dheer lala xiriirinaya United, waxaana loo arkayay bedelka saxda ah ee Carrick, laakiin dareenka ayaa haatan u weecday Camavinga maadaama West Ham ay dul dhigtay madaxa Rice adduun dhan 100 milyan oo euro. 18 jirka muddadii uu ku sugnaa kooxda Rennes wuxuu soo bandhigay waxqabad lidi ku ah daa'irnimadiisa. Laba ka mid ah astaamihii ugu waaweynaa ee xidigan uu ku soo jiitay indhaha caalamka ayaa ah taakalo guuleysta iyo awood uu kubadda ku hayn karo, taasoo ah tayada United ka maqan. Waxaana loo arkaa haddii uu ku soo biiro United mid si weyn u ilaalin kara difaacyada kooxda.